dugsiyada Ilays ee magaalada Hargeysa ayaa waxay muujiyeen dadaal dheeraad ah imtixaanaadkii ugu dambeeyay iyadoo dugsiyada Ilays ee hoose dhexe iyo kuwa sareba ay ku guuleysteen kaalmaha ugu horeeya waxaana munaasabada qalin jaminta loo qabtay ardayda dugsiyada hoose dhexe ee dugsiga Ilays Jigjigeeyar kuwaas oo kaalinta labaad ka galay guud ahaan imtixaanka dugsiyada hoose dhexe ee dalka iyo kaalinta saddexaad iyagoo dugsiyada sare ee Ilays ay kaalinta koobaad ka galeen hablaha guud ahaan dugsiyada sare ee Soomaaliland imtixaanka galay maamulka dugsiyada Ilays ee Jigjigeeyar iyo qaar kamid ah mas'uuliyiinta waalidiinta ardayda ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Ilays Jigjigeeyar sanadkan wuxuu kaalmo ka galay imtixaankii qaranka oo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad runtii ku guuleystay markii uu horeysay dugsiga Ilays ku guuleystay ma runtii dugsiyada kale kaalmo soo galeen ama dugsiga sare ahaado dadaalka faraha badan runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay runtii macallimiintii iyo waalidkii juhdiga badan aad soo galisay runtii waa ta koobaade mid waa sagootin aynu ku sagootiyeyno dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisa dugsiga Ilays Jigjigeeyar dufcadaas oo runtii noqotay dufcad iskuulka u soo hoysa guulo aan la yareysan karin waxaan leeyahay ardayda aan ku dardaaraya mar iyo laba iyo saddexba ka faa'iideysta waqtiga oo waalidkiina iyo ubadkiina iyo tacabka leedgiraha qasaarina waxaan halkan u imi dugsigan Ilays oo kamid ah bahdayadii oo ah kuwa aan ku faano inaan halkan ka hambaleeyo oo aan aad ugu hambaleeyo waliba kaalmaha qaaliga ah ee ay noo keeneen xubno kamid ah ardayda dugsiyada Ilays ayaa hadallo waano badan anigoo xusaya ardayda iyaguna naga dambeeya runtii waxaan leeyahay ardayda iyadani anigu waxaan halkaasi ku gaadhay waan isku day shayga haddii la isku dayo unbaa la gaadhaa haddii aad laakiin la baqato qudrada aad leedahay iyo awooddaada wax weligaa helimaysa anigu ardaydayadas aad baan ugu hambalyeynaya waxaana leeyahay cilmiga iyo aqoontaad barateen wadankiina ku dhisa waayo wadanku maanta wuxuu baahan yahay aqoon in lagu kabo dugsiyada Ilays oo dhan ka soo guuleysteen annaga magac bay nooga tigeen magacaas oo ah inaan anagu nahay hadda ardaydii bedeshay lagana sugayo inay soo hooyaan guulahaas iyo guulo ka duwan ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها ما نوربي كان فعسا إن نفسك كل سناتي وهي هذا نفتح كل سنين ما بقى شيء وغيران مرة ما يكتب ما قال يكتب ما شاركتي وهي تقف عكس كل كتابة هايبة مركا آن نفتح واحد هاي كل سنة نفتح قلت استحاجة حويا بذلك بني آدم كذاب بكل هالبلد حتى ما أنت على قولنا يا أنا هذا ما أنت مسكت في حنا الحمد لله وحميناها نقول قدرنا وانهيا وأبدي كل سنة ندري سنة مسكتها تلو مدلع أنا هدري لكن وبذلك داري وحهو ما كاسم بابدنا يده مركا دكسي بيحد ما يسو مركا دكسي سارد ما يسو هلاد يجوش جابو خراء الصعوبة جوسن هل كاتها معد كراسو دقيق يديها جديدة هنا مسترنا كراسو هلاقة تاريب كدافة طبيب هو قندر كتورة agaasimaha waaxda waxbarashada gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Muuse Maxamed iyo gudoomiyaha gudida masma ee maamusha dugsiyada Ilays Sheekh Cabdiraxmaan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay dugsiyada Ilays sida runta guushan ay maanta keeneen ma guushi koowaad oo inantu ay gashay darajada labaad ee dalka inankuna galay ta saddexaad waxaan leenahay markii koowaad kun jeer hambaliyo waxa tiyaadeen hadaanu Ilaysnahay waana ka ma qarsoonin waxaan hambaleynaynaa runtii anigoo dheereynayn ardayda saddexda arday ee kaalmaha la yaab kala galay marka labada arday Ilays Jigjigeeyar iyo ardayda waxa weeyaan iskuulka secondary-ga waan hambaleynaynaa si gaar ah waxaan baahnaa iskuuleeda markaan joognaa Ilays ugu dambeyntiina waxa abaalmarino shahaadooyin iyo bilada lagu taxay ardaydii kaalmaha hore u galay dugsiga Jigjigeeyar ee Ilays Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Hargeysa.